qaybtii waliba fiqiga iyo axkaamta ama nidaamka uu soomku u baahan yahay ee uu ku ansaxayo sharcigu u dhigay waxaynu xusaynaa 4 kelmadood halkan arinta horeysa waxa weeye tiirarka uu ku taagan yahay soomku ee lagama maarmaanka u ah haddii mid ka mid a laga tago uu burayo arrinka labaadna waxa weeye shuruudaha uu u baahan yahay soomka waajibka shuruudihiisa iyo arrinta saddexaad oo sunnayaashiisa iyo arrinka afraad oo ah asraartiisa ama faa'iidooyinka ku jira iyo xigmadaha soomka tiirarkiisa uu ku taagan yahay waa laba arrimood ta u horeysa waxa weeyaan aniya waayo cibaado waliba waxay u baahan tahay niyo inaad maanta isaga afxidhan tahay abateed xumo iyo gaajo ku hays adigoo aan cunnada jeclayn iyo inaad sooman tahay waxa kala saari kara waa niyada nabiguna wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam inama alacmaalu biالniyaat ay inamaa sixaة اlacmaali manuudaة biالniyaat camalada ansixidoodu waxay ku xidhan yihiin niyada inaad qubaysanayso ood qabowsanayso iyo inay jinaabo aad ka maydhanaysa niyadaa kala saaraysa halkanna waa sidaasun wamaa umiruu ilaa liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu diin dadka waxaa la faray inay ilaahay caabudaan iyagoo cibaadada u saafi yeelaya qasadkeeda iyo niyadeeda niyadaa iyada ahi waa rukniga koobaad waxaa markaas lagama maarmaan haddana lala akhriyayaa taas inay habeenkii dhacdo oo waagu aanu kaaga baryin oo cibaado waliba wakti bay leedahay la niyoodo waana intaanad bilaabin soomka salaada sakada xajka iyo cibaado waliba intaanad gudagelin ayaa weeye niyadeedu inaad u dhaqaaqayso ka dabatuur ma yeelata niyadu oo imika duhurkii ma odhanaysid soomkii iska niyood ka sunnaha ma aha laakiin kaynu ka hadlaynaa waa kii faralka ah xadiid asxaabu sunan iyo culimo kaleba ay warinayeen oo sugan ayaa nebigu wuxuu uhi salى اllahu عalayhi wasalam man lam yujmic الصiyaama biاleyli falaa صiyaama lah calaa macna اxadiid qofku haddii aanu siyaamka soo niyoonin qabla alfajr waaga ka hor maalintaas soom ma leh waa inuu niyaduna waxa weeyaan uu go-aansada aroorteed in soomayo markuu cashaynayo suxuuranayo ereyada laakiin la akhriyo ee madhabta shaaficiyadu ay yidhaahdaan waa sunne iyadu daliil ma leh nawaytu sooma gadin can adaa'i fardi shahri ramadaan intaa dheeri wax daliila ma laha iyadu ee qofku uu go-aansanayaa un arrinta labaada loo baahan yahay waxa weeyaan in uu qofkii iska daayo waxyaabaha soomkii ka jebinaya soomka waxyaabaha jebiya waxyaabaha muftiraadka ahee jebinaya waa inuu iska daayo waxyaabaha jebinayana ilaa 8 shay baynu soo sheegnay casharkii inkii ka horeeyey cunistii iyo cabiddii iyo galmadii iyo gaalnimadii iyo waxyaabahaasi ay ka mid ahaayeen waayo cibaadadani si kayaankeedu u jiro marka aad hirgeliso wixii burinayana waa inaad ka dayso labadaa shardi labadaa tiir baa lagama maarmaana in cibaadadana ay hesho halka arkaanta salaadeedu dhowr iyo 10 ay yihiin xajkana 5 meelaha ay noqonayaan iyada labadaas ku soo urursan yihiin arkaanta soomka waxa markaa aynu u gudbi lahayn qodobka labaad oo ah cibaadadan iyada ah sunnaha shuruudaheeda shuruud hadi alcibaada shuruudeedu waa laba qaybood qayb waxaa la yidhahdaa shuruud asixa qaybna shuruud alwujuub shuruudaha qaarkood waxaa qofkii laga doonayaa in la helo si uu soomku ugu waajibo kaa uu ku waajibay laftiisa haddana shuruudo kale loo sii xidhayaa oo uu kaga ansaxayo qofka soomku uu ku waajibaya waa qof muslima oo miyir qaba oo qaangaadha oo aan musaafir ahayn
reerkiisii ku negi caafimaad qaba sidoo kale daahira oo waxaynu uga jeednaa daahirka ruuxii dumarka ahayd dee waa inaa dhiiggii caadada iyo kii dhalmada aanay lahayn waa qof muslim ahoo qaangaadh ah oo miyir qaba oo caafimaad qaba oo reerkiisii joogoon musaafir ahayn daahirna ah waa 6 shardi 6daa marka la helo waa lagu yeesho soomka hadduu ka tagana waa aafim ama dembiile oo dee qof arkaan islaamkii mid ka mida ka tega weeye shuruudaha uu ku ansaxayo waxaa jira qof aanu ku waajibin laakiin uu ka ansaxayo iyo qof laga maarmaan ay u tahay markuu ka ansaxayo inuu la yimaado shuruudaha laga yaqaano shuruudu sixa waa qofku inuu muslim yahay hadduu gaal yahay kama ansaxayo xataa hadduu soomo qofku waanu caaqil yahay mid miyir qaba hadduu waalan yahay xataa hadduu soomo kama ansaxayo qofku waanu daahir yahay haddaanu daahir ahaynoo ruuxa dumarkii caadada iyo dhiiggii ay leedahay xataa hadday soonto kama ansaxayo marka shuruudihii baa sii kala hadhan shardiga afraada lagu dari karaa waxa weeye inuu mukhtaar yahay qof isagu doortay oo haddii la qasbo xoog intoo lagu qasbo la idhaa soon dee waxba kama ansaxayaan marka afartaas shardi waxa weeyaan dhinacna waxay ka raacsan yihiin shuruudihii waajibnimada dhinacna shuruudihii ansixidda ayay noqonayaan halkaa 2 qodob baynu ku dhaafnay qodobka saddexaad ee axkaamta ka mid waxa weeyaan si cibaadadeennan midhaheedu ay u bataan ama tayadeedu ay wanaagsanaato ajrigeedu u bato waxa laga maarmaan sunnayaashu waa ilaa 10 kan arrimood soo socda waxa ka mid ah inuu qofku suxuurto oo haddii aanu suxuuranin soomkiisu waxba noqon maayo laakiin ajrigiisa ku badanaya siduu nabigu faray sallallahu alayhi wasallam tasaxaru fa inna fi suxuri baraka suxuurta buu nabigu baraka ku jirta baraka dhinaca diinta iyo baraka aynu taabanayno oo dee qofkii tamarta uu helaya sunnaha labaad waxa suxuurta qudhigeeda inaynu dib dhigno oo xagga waaga lagu dhaweeyo sida uu tilmaamay xadiidka saxiixa Zayd ibn Thabit warinayo ee uu leeyahay nabigaanu la suxuuranay markii aanu suxuurnay yar kadibna waxaan u kacnay salaadii subax intii u dhaxaysay markii la weydiiyay 50 aayadood qadar lagu qiyaasi karaa u dhaxeeyay waa wax aan 10 meerar 15 meerar meelahaas u dhaxeeyay marka suxuurta dibka jira waxa weeye hadii hore loo suxuurto qofku inuu seexda laga yaabo salaadii subax dhaafto sida dadka qaar kood ay sameeyaan mana laha wax farqiya bisha 15 ka hore iyo 15 ka dambe siday dadkeenu yiraahdaan 15 ka horena waaga hore loo suxuurtaa 15 ka dambena waaga la iska ilaaliyaa marka labada jeerba waa in la dib dhigo aadaabta waxa kamida sunnayaasha aan ilaahdo ka saddexaad waa in afurka laftiisa la dadajiyo rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam la yazaalu an-naas bi khayr ma ajal al-fitr dadku khayr bay ku sugnaanayaano sunnihii iyo hadigii wanaagsanaa sidii bay ugu taagan iyagoo nabi maxamed kaga dayanaya inta afurka dadajinayaan qoraxdu ma dhacaysay way wareegaysaa markay adiga ka libdhoon bada furaysa markay inaga qarsoonto ee aan wax gidaari ku gudbanayn kolkaas aad afurka dadajinaysa sunnaha sidaa ku jira sunnaha shanaad waxa weeye timir lagu afuro inagu ma helayna waliba nabigu wuxuu ku afuri jiray rudabaad qaybta rudabka la yiraahdo waa timirta cusub ee markaa wanaagsan taa hadaan lahaynina timirta kala lagu afuraya waayo wax fara badan bay jirka caafimaadkiisa qayb ka tahay iyo caafimaadka jirka iyo ruuxda labadaba way faa'iideynaysaa timirtu waa haddii aanu qofku dee cudur qabin uu ku dhib mudanayo waa sunnihii nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnaha lixaad waxa weeye iftaaru saa'imiin qofba wuxuu heli karayo dadka sooman inuu ku afuriyo oo aanad keligaa una furin ama aanad dadka afuru doonaan in haddaad heli karayso waa inaad ugu dadka isku daydaa inaad afurkooda ka qayb qaadato waxaad ku afurinaysaa ayaanu badnaaninba nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi qof sooman qofka afuriyaa ajrigiisi in la-eg buu leeyahy xabad saambusaati haddaad siiso koob sharaaba siiso wax kastood siisaba qofka ku dadaal inaad ka gaadhsiiso inaad la hesho inaad adugu afuriso marka taasina ajrigaasay leedahay oo dee kolba inta qofeed afuriso ayaad ajrigoodii leedahay haddaad 100 qof afuriso dee 100 maalmood baad sootay ka dhiganta
sunnayaasha waxaa ka mid ah iktaaru sadaqa sadaqada in la badiyo mar gaara insha allah si gaara uga hadli sadaqada waxa weeye qofku markuu sooman yahay sadaqadiisu waa inay ka badnaato waqtiyadii kale caadiga ah oo cibaadadii iyo cadiyadii baan labadaba isku daraynaa وكان أجود ما يكون في رمضان وكان أجود ما يكون في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم مركي سروا قعان فرنا ديخ سبوها ولبا رمضان بوسيب بدين جريدين لين صحابته حديث الصحيح يسود الباب أيوه سنة اللي حاذو حوية بشر وبشر قرآنك لا بد من الإكثار من قراءة القرآن قرآن كريم كآخرين سنين بدنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبشر قرآن كالسودة شيء قلبك كن نوريا cibaadada ay noo dhandhamaysa malaguna nabiga uu la subcin jiray kaana yudaarisuhu alqur'aan malaku jibriil iyo rasuulku way subcin jireen bisha ramadaan qur'aanka macnaa way wada akhri jireen mudarasadu waa wada akhrin weey cinaayo iyo dadaal gaara weey marka waa inaynu samaysanaa jadwal ama waxaynu ku howlgallo maalintii aanad dhaafin intaa akhri oo intaa ku kordhi oo sidaas si aad bishii u garan karto inta jeer dhammaynayso imika waaba inaga xidhantae sunnayaasha waxaa ka mid ah sagaalada ictimaarka inuu qofku cumro soo guto sanadkan way ma suuroobayso waa la xidhay laakiin waqtiyada ay furnayd cumradu iyo qofka ay u dhib yar tahayba rabadaan in cumraysto nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uhi cumratun fii ramadaana tacdilu xaja qofku inuu cumro soo guto bisha ramadaan waxay u dhigantaa hal xaj markaa waqtigay suuro gashun bay taasi noqonaysa arrinta tobnaad waxa weeye alkafu camaa yatanaafa siyaam inuu qofku iska daayo soomka wixii ka hor imanaya ee ama ka jabin kara ama ajrigiisa ka naaqusaya xagga hadalka marka la eego oo meeshii dad intood ugu tagta hadalkeedu uu badan yahay ama xanteeda ama dembigeeda hadal xumo badan ay kaa soo dhacdhacayso inaad weydaaratood iska daysaa kuu fiican hadallada qaarkiina horeynu soo sheegnay inay burinba karaanba soomkii sida ereygii gaalnimada ahaa oo kale iyo diincaygii iyo ilahcaygii iyo waa hadal laakiin waa hadal burinaya soomkii hadalkaa gaalnimadaa wixii ka soo hadhayna ajrigii buu yaraynaya waxaynu inta ay uga sii gudbi lahaynoo qodobka afraad uu noqonaya asraaru siyaam cibaadadan soomka la idhaahdo xikmadaha ku jira ama midhaha ama faa'iidada ee ku jira ee ku dahsoon ama qofku ay tahay inuu ku baraarugsanaado iyo xikmadda loo jideeyey waxaa ka mid a waa sabab min asbaabi taqwa sababaha keena wey alla kacabsiga inaad alla kacabsi heshaana wax sahlan maaha waa gobonnimada iyo laandheeranimada uu qofku helo ilaahay agtiisa lacalakum tattaquun baa ilaahay uu ku cileeyey markuu soomka iyo waajibnimadiisii ka soo hadlay wuxuu ku gebagabeeyey aayadda in alla kacabsi laga helayo oo sababta laydin faray waxa weeye lacalakum tattaquun si ay ilaahay uga cabsataan waxa labaadoo xikmadihiisa ka mida yudaribu aliraada qofka go-aankiisu carbiyaa oo adiga oo naftaadu ay doonayso hamadaadii iyo cunadaadii iyo wixii ay u baahnayd haddaad u samayso biriig joojiya dee go-aan baad leedahay bay ka dhiganta qofkuna hadduu go-aan leeyahay waa qofku xisaabtan leh oo wanaagsan oo diin iyo dunyaba qiimo leh qof aan go-aan lahayn oo naftiisu ay hogaaminayso ayaa xun yadacu dacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli xadiisulqudsiga waxaa ku jiray sheegaya inuu ilaahay si gaara u abaalmarinayo qofkan sooman aakhiro dee wuxuu u baahnaa cunadiisii iyo cabiddiisii iyo hamadiisii wuxuu uga tegey aniga daraadday buu ilaahay marka waa qof go-aan leh waxa saddexaadoo asraarta ka mida waa ishcaarun linicmat illaah ilaahay nicmooyinkuu ku siibaa dareemaysa bal galabtii u fiirso cunadu macaanka iyo dhadhankay leedahay waxa marka loo baahdo unbaa la gartaa un wanaaguu leeyahy qofkii 4 jeer maalintii wax iska cunayay nicmada ilaahay aada umuu dareemayn laakiin markaad gaajooto ee sharaabka iyo cunadii iyo cabitaanka macaankooda aad aragto waxa odhanaysa war wuxuu wanaagsan ayaa ku siiyey ilaahay allah markaa ilaahay baad u mahadnaqaysaa lianna shaya yucrafu bildid baa la idhaha shayga cagsigiisaa lagu gartaa markaa cunada macaankeeda waxaa lagu garan karaa cuno la-aantaoo gaajada ah waxa weeyaan waa sabab liqabuuli ducaa cibaadadan soomku waa sababaha lagu aqbalo ducada oo nebigu wuxuu inoo sheegay sala allahu calayh wasalam 3 dacawaatin laa turad 3 baryo lama soo celiyo waxaa ka mid ahaa dacwatu saa'im qofka sooman rabbi barigiisa marka ha ilaawina howlahaad qabanaysa maalinta soomka waxaa ka mida ducada waa sababun lisixati alabdaan jidhka ayaa ku caafimaada dad badanoo xanuunsanayaa markay soomaan bay ladnaadaan
bal waxaynu arkaynaa gaalada oo casrigan aynu joogno odhanaya dadka qaarkood markay caafimaadkooda kala talinayaan 8 saacadood soon si cunnadu ay jidhkaaga uga baxdo calooshaada ama jidhkaagu oo had iyo jeer isu safeeyo marka waxyaabo badan baa lagu daweeyaa uu ka mid yahay cudurkan dhiigkarka la yidhaah macaanka iyo cayilka sunta jidhka had iyo jeer gasha duhniyaadka iyo waxaan la yidhaha kolestaroolka qalaqa iyo deganaansho la-aanta iyo su'ul hadmi dheefshiidkoo xumaada iyo idmaanka waxa la yidhaahdo idmaanku waa walafka qofka had iyo jeer balwadaha laasima daroogooyinka ama jaadka sigaarka waxyaabaha lagu daaweeyo soomka ka mid ah ee ummadaha shisheeyaba ay ku daweeyaan marka caafimaadkii ruuxda oo kaliya ma xambaarsana soomku caafimaadka jidhkana waa la ogaaday oo sidaas uu xambaarsan yahay waa sababun liraxmati lmasaakiin masaakiinta in loo naxariistu sabab u yahay oo siraha ku jiray ka mid tahay oo qofku had iyo jeer wuxuu arkayaa qofkan baahane gaajaysnaa dhibaatada haysa markaa wuxuu leeyahay adigu bishanaad xamili weyday ama maalintanoo qura gaaje balka sanadkaba gaajaysnaa talo muxuu ku nool yahay wallaahi in loo gurmadaabuu mudan yahay markuu masaakiintii la gaajoodo ayuu qofkii iyagii u dabcayaa oo deeqsi uu noqonayaa waana sababta dadka muslimiintu bisha ramadaan ay wax aad u badan u bixiyaan oo deeqda ah arinta toddobaad ee faa'iidada soomku waxa weeya waa musaawaatun bayna annaas liijaabi aljuuci calayhim dadkii baa la simaya cibaadooyinku had iyo jeer waxay u taagan inay dadka simaan xajka dadka la simaya oo soo wada xaadiraya iyagoo labis qura wada xidhan salaadu dadkay simaysaa taajirkii iyo maalqabeenkii iyo madaxdii iyo raciyadii garbaha la simaya soomkuna waa saas oo kale oo dadkiibuu simaya gaajaa la yidhi wada gaajooda kii dhargeeya iyo kii wax yar haystayba marka in dadku sinmaanna wax badan baa ku saxma xigmadda sideedaad waxa weeye yusaacidu اlamn nabadgelyada oo dadku ay aada u baahan yihiin soomku wuu saacidaa oo talow siduu u saacidayaa dadka dhibkoodu wuxuu u badan yahay marka ay dhargaan dhan walba waa u dhaqdhaqaaqaano dhaqdhaqaaqooda sharka ayaa badan laakiin haddii ay dharagaasi yareeyaan waxaa yaraanaya hamadooda qaldan iyo hawshooda iyo hadalkooda wuu yaraadaa waxaynu ognahay oo kale oo intaasiiba dheer kii dadka isku diri jiray madaxa isugu dhufan jiray ee qabaa'ilka isku kicin jiray ee shakhsiyaadka isku kicin jiray shaydaanka watan la xidhay kuwoodii waaweynaa naarafuufkii iyo kii dabka soo shidayay waa xidhan yahay sidaa daraaddeed fitanku way yaraadaan bisha ramadaan guushuna way badataa awliyada ilaahay ay helayaan waa sidaa daraaddeed baa waxaa sagaalaadoo lagu tilmaamay annahu sababun linasri cala alacdaa waa sababaha lagaga guulaysto cadowga sidaa daraaddeed baa futuuxaadkii iyo xorayntii la xoreynayo wadamada gaalada ee dadka muslimiintu ay geli jireen in fara badan baa waxay dhici jireen bilahan ramadaan bisha ramadaan bay dhici jireen haddii ay tahay wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo wakhtiyadii ka dambeeyeyba haddaynu inagu nahay dad iska seexanaya uunoo isu arka inay daciifeen wakhtigaasay mujaahidiintuba dagaalka geli jireen sidii beder iyo fatxu maka iyo dagaallo ka dambeeyey oo jihaad ka mid ahaa oo caan ahaa markaa wakhtiyada had iyo jeer guusha la helo ayaa ay ka mid tahay bisha ramadaan ama soomkuba iyada oo loo rugseeyo weliba dadkaa dagaalamayana inay iska cuni karaan mar haddii ay safar ku jiraan jihaada marka arrimaha tobaneeyada ku dhowi iyo qaar kaloo ka sii badaniba waa siro ku jira bishan ramadaan oo marnaba aynaan ka maarmaynin soomkeeda macnaha waa fariidatun bashariya fariidatun sharciya wa daruuratun bashariya sharci ahaan waa faral laakiin basharkiiyo bani aadamkiibaaba u baahanba maadaam arrimaha ijtimaaciga ah iyo shaksiga ah iyo xidhiidhkii ilaahay iyo xidhiidhkii addoommahoo lagu wanaajinaya intuba ay ku jiraan marka afartaa qodob ayaynu ku soo gaabinay oo fawaa'idkii iyo axkaamtii bishan ka mida wahada ma aquuluhu waastaqfiru اllah walilxadiidi baqiya wasalaamu calaykum waraxmat اllaahi wabarakaatu